Saara Maxamed la jecelaydii nafteeda u hurtay ninkay dunida ugu jecelayd isuna dhigtay rasaastii lagu tooganayay indhaheediina ku weyday difaaca gacaliyaheeda ayaa dunida ku dhibtoonaysa qoomamo iyo ciilna ilintu uga qubanaysa kolkii uu cidla uga dhaqaaqay ninkii ay noloshiisa badbaadisay halkii uu dhaawacyada ka dhayi lahaa dhibtana la qaybsan lahaa wuxuu ku yiri gabar aragga naafa ka nolol lama wadaagayo Saara waxay ahayd qalbi xabxab qoonsatay laguna qiyaamay boholyow caashaq iyo jacayl aan xad lahayn iyadoo ku dhacday dabinkii jaceylka danaystaha kaasoo ka fogaaday markuu dhaawacmay wejigeedii dhalaalayay iyo indhaheedii birbirqayay lamood mase noqon waxay u maleynaysay inuu ninkani jecel yahay oo toddobaadkan aroos la geli doono bisha malabka balse wuxuu ku noqday sheexaari beerlaxawsi beena ku sirsiranayay oon beernaxa ku ool dadka badankii ayaa ka damqaday afgembiga ku dhacay nolosha la jeclaydii reer Masar oo ahayd qalanjo alle quruxsami u dhameeyay taageerayaal badanna ku lahayd Instagram-ka iyo TikTok-ga waxaana qisadeeda urkutaalada la isaga tabiyay daafaha dunida dacal ilaa dacal fadlan like saar muuqaalkan haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl mahadsanid jacaylku waa dareen qasri ku yeesha qalbiyada si lama filaanana ugu faafa halboolayaasha dhiigga qaada dad badan ayaana qabri u galay khiyaano jacayl kuwana iyagoo nool ayay qolfoof u noqdeen nafsi ay ka galeen qofkii jeclaa waxaana guulaystay jacaylo qaarado iyo xuduudo badan isaga gudbay oo quwad ka helay calafkooda Saara Maxamed waxay ka mid tahay malaayiin qalbi xabxaba oo jacaylka looga faa'iideystay waxaana furihii qalbigeeda xaday gacaliyaheeda Mustafa waa ninka burburiyay nolosheeda sidoo doonana ka yeeshay nafsadii axdiga jacaylka ay wada qorteen Saara Maxamed oo ahayd model fashion-ka looga haray aadna looga yaqaan baraha internetka ayaa ka dhalatay qoys maalqabeeno ah kuwaasoo caan ka ah magaalada Alexandria ee waddanka Masar waxayna jacayl halboolayaasha dhiigga fariistay u qaaday wiil ka soo jeeda qoys danyar ahaa oo ku noolaa guri aan ka fogeyn qasrigooda muddo dheerna sheeda kala socday kuna fooganaa nolosheeda kaasoo ay isku barteen aaladda Instagram-ka wuxuuna ku abuuray jacayl indhaha tiray intaysan shil indhaha ku beelin wuxuuna ka doonay qoyskooda isagoo u ballan qaaday gabadhooda inuu siin doono farxad dhammaystiran waana loo ogolaaday inay isguursadaan waxayna qorsheynayeen inay dhowaan aqal galaan lamaanaha ayaana maalintooda madow dalxiis u aaday tuulo ka mid ah saxaraha Alexandria kaasoo ay sheegeen inay farxad iyo damaashaad ku soo qaadanayaan nasiib darro Saara Maxamed waxay la kulantay shil aad u xun oo nolosheeda wax ka bedelay jacaylka runta iyo beentana u kala saaray iyagoo gaarigooda raaxada ku tamashlaynaya saxaraha ayaa waxa soo weeraray koox burcada oo aan haybtooda la garanayn Saara oo horaantii aragtay ayaana u sheegtay Mustafa inuu iska jiro cadowga waxayna isu dhigtay rasaastii lagu soo ridayay gacaliyaheeda taasoo sababtay in muraayadaha gaarigu ay indhaha ka galaan madaxana ay xabadi ka fariisato Saara Maxamed halka gacaliyaheeda uu ka badbaaday waxaana soo gaaray xoogaa daqaraa oo firirku u sababay gabadhiina waxay gashay xaalad halisa markii ay miyir daboolantay iyadoo maskaxda uu dhiig kaga furmay indhihiina nuurkii ay waayeen ayaa dhakhaatiirtu cusbitaalka ku qaabileen waxayna gashay qalliino dheer oo maalmo qaatay oo indhaha looga saarayo firirkii muraayadaha gaariga waxaana dhakhaatiirta u caddaatay inay aragga beeshay oo aanay mar kale waxba arki doonin taasoo murugo ku abuurtay qoyskeeda balse waxa la yaab noqotay in ninkii ay dartii u indhabeeshay aanu soo booqan wax dan ahna uusan ka gelin dhibaatada soo gaartay gacalisadiisa Saara Maxamed oo ka hadashay shilkii nolosheeda afgambiyay ayaa tiri dhaawaca isoo gaaray waxa igaga xanuun badnaa inuusan isoo booqan ninkii aan dartii u indhabeelay waxaana maqlay inuu ka baxay qorshihii aqalgalkeena aabaha dhalay Saara Maxamed ayaa Mustafa ku eedeeyay inuu yahay arxan laawe danaysta ah oo aan ka damqan dhibaatada soo gaartay gabadhooda laakiin Mustafa oo waraysi bixiyay isna difaacay ayaa sheegay in Saara hooyadeed ay u diiday inuu gabadha la kulmo ama cusbitaalka uu ku soo booqdo ayna aad u neceb tahay isaga sabab la xiriirta faqirnimada bishaaro ma tahay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha gaar ahaan Mareykanka Canada iyo Yurub ma dareemaysaa inaad u baahan tahay inaad hesho dhaqaale ama dakhli ka madax bannaan midka hadda samayso ma doonaysaa inaad muddo kooban ku hesho maal adduunan xad lahayn ma tahay qof jecel inuu noloshiisa ku sameeyo isbeddel dhaqaale khibrad ahaan iyo fikir ahaanba in badan ma ku fikirtay inaad samayso ganacsi kuu gaara mase ku dabreen duruufaha dhaqaale ma tahay hooyo jecel iyadoo ubadkeeda haysata inay dhaqaale samayso una baahan caawimaad haddaad ku nooshahay wadamada Mareykanka Canada Yurub iyo waliba waddankeennii hooyo
waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo in ka badan 160 wadan aad kaga samayn karto dhaqaale dhaxalgala. shirkadda weyn ee Forever Living oo Soomaali badan u fidisay fursad ganacsi waxay kugu bishaaraynaysaa fursad aad dhaqaale kooban ku bilaabi karto. haddii ay ka go'an tahay isla markaana aad tahay qofka loo baahan yahay, fadlan la xiriir manager Cusmaan oo dad badan ka caawiyay sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho maaliyadeed iyo khibrad ganacsi. manager Cusmaan wuxuu ku dhexleeyahay Forever Living ganacsi ka shaqeeya wadamo badan, adigana wuxuu diyaar kugu yahay WhatsApp number +1 41 65 79 83. waase haddii aad awooddo inaad bilowdo ganacsigan oo ay ka go'an tahay,